xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada Cadaada ayaa sheegay inay mooshin ka gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Cali Gacal Casir. xildhibaanadan ayaa gudoomiyaha baarlamaanka ku eedeeyay xil gudasho la'aan iyagoona sheegay in mooshinka ay u dhiibeen ku-xigeenkiisa koowaad Xareed Cali Xareed isla markaana ay hab sharciya u mareen. waxa ay sidoo kale xildhibaanadu ay eedeymo u jeediyeen xubno ka tirsan aqalka sare ee federaalka dhawaana lagu doortay magaalada Cadaada iyagoona sheegay faragelin ay ku hayaan shaqada xildhibaanada baarlamaanka galmudug waxayna dhinaca kale baaq u direen in nabad lagu soo dabaalo magaalada Gaalkacyo oo maalmihii la soo dhaafay colaado ay ka jireen. mooshinkaas wuxuu ahaa mooshin waafaqsan sharciga u yaala dalka iyo dowlad goboleedka galmudug. gudoomiyaha baarlamaanka waxa lagu soo eedeeyay wax sax ah oo ah xil gudasho la'aan. mooshinkaas wuxuu maray dariiq sax ah waxaana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka. waxaa la yaab nagu noqday saacad ka bacdi in gudoomiyihii moshinku ka yaalay oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiska madaxweynaha wax lala yaabay noqotay asoo dhahaye baarlamaankan xiray say macquul u tahay aan isweydiino su'aashaas gudoomiye mooshin laga keenay inuu yiraahdo baarlamaankan xiray haddii ay dhici karto qof mooshin ka yaal inuu baarlamaan xiro amba kulan joojiyo si sharcigu u shaqeynaa. gudoomiyaha waa doodi karaa laakiin wax shaqo oo uu qaban karo iyo shir uu xiri karo midna ma jirto. waa xubin baarlamaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug waxa weeye haddii mooshin laga keena sharcigu wuxuu qabaa inuusan wax shaqo qaban karin inuu isdifaaca moogiyo sidaas darteed shirka jaraa'id uu qabtay waxba kama jiraan xaqna uma laha sharcina uma laha. tan labaad senatarada waxa lagu eedeynaa waxa weeye dastuurka galmudug waxa waxna ka bedeli kara waxna ku dari kara baarlamaanka galmudug senatarka shaqadiisa ma aha. nasiib darro 24 sano kadib qabiil wax u eg iyo dowlad goboleed in loo dagaalamo oo dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo oo dad Soomaaliyeed oo kumanaan kun gaaraya ay barakacaan in dagaalka la joojiyo ayaan ku baaqaynaa xaggeena iyo dhanka kale oo Puntlandba. intaa kadib waxaan rabaa halkaan uga faa'iideysto mooshinka la sheegay waa laga soo hadlay waxaa jira senatarro la doortay oo dowlad goboleedyada ka soo baxay kuwa dhankeena galmudug waxaan rabaa inaan uga digo qaar ka mid ah ayaa iyagoon wali la dhaarin waxay ku xadgudbeen dastuurkii iyo qaanuunkii dowlad goboleedka galmudug. maxamed maxamuud awaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.